بسم الله الرحمن الرحيم وصاحبكين كابي maanta waxaan qaadanaynaa barnaamij haddii aad rabto inaad sii sifayso computerkaaga ama C drive-ka ama local disk-ka markuu ka buuxsamo qaabkaad aad isaga nadiifin lahayd computerka si uu kugu noqdo mid aad u fudud drive-yada computerka saas darteed marka hore waxaad samaynaysaa qaybtan search markaad furto waxaad ku qoraysaa run markaad ku qorto waxa ku furmaya app-kan yar ayaa ku furmaya si aad wax ugu qorato marka qaybta marka hore cleaning aad rabto waxaad qoraysaa qaybta temp markaad ku qorto waxaad arkaysaa marka file-kaasoo aad u buuxiya computerada hase haddee qaybtan wax yar ayaa igu jiro qaybta markaasaan dhahay waxaad taaban kartaa marka shift delete ama qaybta delete-ka ayaad taabanaysaa ama right click delete wax ayaa kaaga haraya mar walba markuu ku haro inta ku hore skip ayaad iska dhahaysaa skip markaad atriic ayaad delete dhahaysaa intaas ayaa kugu haraya marka labaad qaybta labaad aan gelino waxaa ka mid ah calaamadda waxaad taabanaysaa shift iyo number 5 ayaad taabanaysaa percentage shift iyo number 5 markaad taabato ama shift percentage ayaad taabanaysaa temp ayaad qoraysaa haddana temp markaad qorto percentage-ki ayaad ku celinaysaa kadibna OKC isla sidii hadda ayaad maraysaa marka intaanu file waan waxba noo tarin oo naga buuxinayo C drive-ka waxaad dhihi kartaa marka control A markaad dhahdo hal mar ayuu selection kugu sameynaya ama selection ayaad ku sameynaysaa inaad mouse ku qabato aad ku jiito waxaa kaaga fudud laakiin control A ayaad sameynaysaa control A markaad sameyso haddana shift delete ayaad taabanaysaa ama right click delete sida kuu fudud waad sameyn kartaa markaad delete dhahdo hadda 75 items ayaa igu jira markaad delete aad dhahdo inta markaas qaar ayaa diidaya markaad click aad siiso skip iska dheh inta ku harta markaas ma awood inaad tirsid waa saga dhaafaysaa intaas waa qaybta labaad waa qaybtii koowaad oo laba waji aan marday okay intaan marka la ku celi marka hadday aad u badan yihiin skip iska dheh 100% markuu ku gaaro complete ku gaaro inta hartay ma tiri kartid okay yaad siinaysaa waad ka bixaysaa marka qadkaan oo dhan marka waa iska sugaysaa ilaa uu kaaga buuxsamo waa qaybtii koowaad ayaa inta noogu dhamaatay marka okay qaybta labaad markaad rabto inaad sii tirtirto ilaa 4 qaybood meelahaas aan qaadanaynaa qaybta labaad waxaad dhahaysaa markaad furato meeshii hore ayaad markaad taabato waxaad qoraysaa prefetch wax la yiraahdo prefetch wuxuu ka tiraya waxa la wixii wasaq oo qaybtaas ku jirto file-kaas ayuu ka tiraya prefetch markaad dhahdo okay oo aad siiso mar inuu ka diido laga yaabaa si aad isku wareerin continue iska dheh continue ayaad sameynaysaa continue aan permission uu ku siinaya marka continue markaad dhahdo wuxuu ku furaya marka file badan oo aan waxba ku tarin si uu u khafiifiyo file-kaasi marka waxaad sameynaysaa iska hubi marka hore control A markaad taabato ayuu selection ku sameynaya ama cagaar uu kaaga dhigaya ama ayaad soo markaad soo jiito mouse ayaad sameynaysaa haddana delete ku samee marka hadaba 202 item ayaa igu jirta intaan waxba aan ii tirin delete yes ayaad dhahaysaa marka qaar hadduu kaa diido hal file ayuu iga diiday marka skip ayaad iska dhahaysaa waxba isku wareerin marka hal file ilaa 2 file ilaa 3 file waxa wixii ku haro kan inta ayaan ku ogaanay marka qaybtaan waan ka bixinaa qaybta saddexaad ayaan gelaynaa oo recycle bin-ka ayaan sameynayna marka labadii file aan sameyn waxa sameysaa recycle bin mar walba waa inaad iska nadiifisaa wixii file lahaa oo haddan aan tirnay si toos uma tirmayna saat wixii noo aadanayso recycle bin-ka empty recycle bin ayaa sameynaysaa ani hore ayaan u tiray marka waxba iguma harin marka qaybtii recycle bin-ka qaybta afaraad waxaan sameynaynaa marka waxaad sameynaysaa qaybta afaraad markaad gasho qaybta run aad dhahdo ayaad qaybta uninstall ayaad ku qoraysaa marka uninstall all unwanted wuxuu ku geynayaa meeshii aad control panel aad ka geli lahayd add or remove programs ayaad taabanaysaa marka add or remove programs ayaad taabanaysaa markaad programkaas aad taabato uu kuu furmo waxaa kuu furmaya marka malfiyo badan ama aabo badan oo aan aad u badan iyo feature badan ayaad helaysaa apps and feature booskiisii ayaad riixaysaa markaad riixdo file badan oo computerkaagii ku jiro iyo programyo badan aadan
u baahnayn ayaad ka heli kartaa oo mar hore aad ku soo degsatay. markaad app and feature aad dhahdo wixii program ama file aad rabto oo app meeshan ku jiro ayaad iska tiraysaa. marka aniga hore ayaan u tiray saas darteedii yani daruuri ma aha inaan had marka aan ku celiyo. marka failka aad delete aad siiso sida kan oo kale markaad click aad siiso failka waxaad arkaysaa qaybta hoose ee midig ku qoran uninstall kaas ayaad click leedahay. yani tusaale ahaan hadda qaybta markaan aan click siiyo inta kale adaa kale fahmi kara. marka barnaamijyadan waxba kuu tarin ma failalkan waxba kuu tarin waxaad samayn kartaa marka click oo kale qaybtan uninstallka ayaad riixaysaa. saas darteed ayuu kaaga tirmayaa. marka mid walba oo aadan waxba kuu tarin haddaad saas u tirto waxaad helaysaa space badan oo diskahaaga right click ayaad siinaysaa qaybta local diska ah. right click markaas siiso property-ga ayaad riixaysaa kadibna toolska ayaad tagaysaa qaybta ku qoran toolska kadib optimize ayaad dhahaysaa. optimize marka aad riixdo optimize-ka waxaad ismar walba iska hubisaa in C drive-ka uu ku jeegaraysan diin uma baahnid system file uma baahnid qaybta C-ga waa inuu ku ahaada. kadibna optimize kale ayaad ku sii celinaysaa. optimize markaad markale aad ku sii celiso drive-yadaada waxaagii kulley asaga ku tiray si toos ayuu optimize kugu sameeynaya 100% marka dib ugu noqo marka okay iska dheh qaybta noogu dambaysa aan qaadanayno waxa la yiraahdaa disk cleanup. qaybtan ayaad qoraysaa soo hesho disk cleanup gudaha ka heli kartaa. si ahaatee qaybta search bar ayaad ka heli kartaa ayaad ku qori kartaa marka disk cleanup wuxuu ku nadiifinayaa disk oo dhan si toos ah. marka haddii aad drive C-ga disk cleanup aad taabato aad riixdo computerkaaga wuxuu kaaga dhigaa mid nadiif ah. marka meeshan mid walbo check waa inaad ka dhigtaa check up waa inaad ka dhigtaa. waxaa laga yaabaa in qaar ay check aysan ahayn aysan ku furnayna laga yaabaa. marka intaas ayaad riixaysaa kadibna clean up system file ayaad leedahay okay aad iska siinaysaa. marka asaga ayaa si toos yani u wadaya shaqadiisii. mar labaad markaad ku celiso ayaad waxa laga yaabaa in daqiiqado badan uu ka qaato waxba yani hadegdegin waa iska sugaysaa ilaa uu ka dhamaado. saas darteed markaas ayuu computerkaaga wuxuu ku noqonayaa mid wax badan uu kaaga tirmay culeyskii markaa kuu saarnaa computerkaaga wuxuu ka dhigayaa mid aad khafiif u ah. saas darteed marka barnaamijyadan qodob oo aad iyo aad يعني افرض مركله حتى بركو كسيو disk cleanup isla sidii aad ku celinaysaa okay markaas siiso delete files markaad tiraahdo qaybta marka waqti yar ayuu ka qaadanaya daqiiqad ilaa 3 daqiiqo ilaa 4 daqiiqo hadba wuxuu ku xiran yahay marka sida computerkaaga uu speedka uu qaato ayay ku xiran tahay. waxba asdadajin waa iska sugaysaa marka drive C wixii wasakh ah iyo yani casho oo ku jiraan oo file ayuu wuxuu kaaga dhigayaa kuwa clean kaaga dhigayaa. marka saas ayaad ku samaysan kartaa barnaamijyadaada ama computerka ama laptopka haddii aad ku aragtid wax culays ah. marka cashirkeena intaan ku soo koobaynaa saaxiibayaal insha Allah wixii talo iyo tusaalahana hoos ayaad igu soo qoysaa. marka waxa GB badan ayaa ku free ah marka space badan ayuu ku siinayaa. marka intaas iyo nooga cashirkii. Assalaamu calaykum wa rahmatullah.